markaa burburkaasi wuxuu keenay in maaragtay xog siyaadaha ay isticmaalaan kooxooyin kala duwan kala joogay qaybo kala duwan oo hab qabiil u abaabulan toogashooyin dadkii lagu leynayay kufsiyo dhacay maaragtay barakicino dadkii lagu sameynayay iyo maaragtay isu diid ama is-hortaag gargaarkii oo dhacayay iyo waxyaabo fara badan oo maaragtay xagga damiirku aada uga xanuun badan yahay marka hal habeen 16 ambasad 24 bisha ayaa go-aan la gaaray xuquuqda aadanaha Soomaaliya waxba laguma qaban karayo caga jidka dheer ay soo gashay ay u baahan tahay waxa tahay gudoomiyaha dalada difaacayaasha xuquuqda insaanka ee GSR Africa waxaynu ognahay in si weyn xuquuqda insaanka loogu xadgudbo guud ahaan Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya maxaad soo dhan kartaa way ka bedeli karaan shirkan imika ka dhacay magaalada Geneva waxyaalaha ka jira dalka Soomaaliya dalka Soomaaliya sida sheegtay in muddo aad u dheer baa tacaddi lagu sameeyay xuquuqda aadanaha Soomaalida hana qato mid maaragtay mid qaab dawladnimo xadgudubku u dhacay midka maaragtay fikirka iyo midka qowlka iyo surursiga iyo qaanuunkii oo la laalay laga bilaabo 1969 markii dawladda militariga ahi ay xukunka la wareegtay ka dambana uu galayba heer maaragtay cabrintu ay naqato iyo burburka Soomaalida uu aado qaab aad u weyn ilaa qarankii Soomaalida uu burburay qaybo kala duwan ay u kala baxeen sooyaal yar baan rabaa inaan u sameeyo marka burburkaasi wuxuu keenay in maaragtay xog siyaadaha ay isticmaalaan kooxooyin kala duwan kala joogay qaybo kala duwan ku mahadsantahay horta inaad noo timaadeen oo noo wareysanaysaan waxaan u nimidnaa waxaa looga hadlaya shirkan human rights-ka waxaana kasoo qayb gala dad badan oo dawladda u badan naguna maadaama aan ka shaqeyno human rights-ka waxaan ahayn dadkii looga casuumaan ku jira Fortuna Abdulsalaan Aadan waxa tahay gudoomiyaha Elman Peace and Human Rights Center xaruntiinu ay tahay magaalada Muqdisho waxa ka shaqeysan xuquuqda insaanka ilaa markii aad soo bilowdeen ilaa maanta waxyaalaha idin qabsoomay la taaban karo ee isleedin xuquuqda insaanka waad ku soo kordhisaan ama waxaad ka qabateen maxaa kamid ah wallahi xuquuqda insaanka Soomaaliya waa horta in wax la qabto in la bilaabo oo la dadaala ka horeyso anagu Soomaaliya dhibaatada ka jirta iyo waxyaabaha xuquuqda insaanka horta aad ay u dhibaato badnay still way dhib badan tahay laakiin waxaan nahay dadka ka hadla adduunka u sheega waxa dhibka jira laakiin in wax laga qabto oo wax laga bedelo waxa sameyn kara dawlad ilaa dawlad xoog leh la helo xuquuqul insaan ma dhismi karo marka taasna waa waxa